xuska munaasabadda 18 May sanad guuradeeda 2 ee ka soo wareegtay ayaa waxaa si weyn looga xusay degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex waxaana xafladaasi ka soo qayb galay xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka degmada Salaxley xubnaha golaha deegaanka odayaasha haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee ku nool degmada Salaxley bulshada ku nool degmada Salaxley ayaa waxa ay socod lugu ku mareen bartamaha laamida degmada Salaxley iyagoo halkaasi ku xusaya munaasabadda 18 May isla markaana sitay astaamo kala duwan oo lagu weyneynayo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadib ayaa waxa la isugu yimi goobtii loo asteeyay in mas'uuliyiintii kala duwaneed ee xafladda 18 May ee degmada Salaxley ka soo qayb gashay ay kula hadlaan dadka ugu horreynna waxa halka ka hadlay maayarka degmada Salaxley maayar ku xigeenka xogayaha fulinta odayaasha haweenka iyo dhalinyarada degmada Salaxley kuwaasi oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay maalinta 18 May xuska munaasabadda 2 guurada ee ka soo wareegtay maalintii runtii qarannimada aynu qaadanay 18 May si gaar ah waxaan hambalyeeynaa dadweynaha reer Salaxley waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa guddidii inoo soo qaban qaabisay munaasabadda waxaan hambalyeeynaa oo u mahad celinayaa runtii dadweynaha kala duwan ee runtii maanta oo dhan u taagnaa si aynu u muujino qadiyadda jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland xuskan 2 guuradu wuxuu ku soo beegmay iyadoo meelo ka mid ah Soomaaliland runtii lagu soo duulay waxaan runtii u duceynaynaa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka ee runtii hadhiyo habeenba u taagan difaaca dalka ciidanka qaranku ha noolaado ciidanka qaranku ha noolaado cadawgaadu ha jabo بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سوماليلاند ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم munaasabadda 18 May ee sanad guurada 2 waxaan halkan hambalyo kula wadaagayaa yasalaan oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xaasaskiisa iyo guud ahaanba ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka ku sugan jiida hore ee difaacaya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta 18 May tahay iyo horeba aad iyo aad baan igana u salaameynaa waana u ducaynaynaa runtii Soomaaliland in badan baynu laga hadlay in badan baa meel kasta laga hadlay in badan baa goon istaageena laga hadlay 2 sanadood ayaynu dawladnahay xuduudaheena waa la yaqaanaa xuduudaheennuna ma aha qaar maartay muran gelaya waxay la mid yihiin xuduudaha maxay haytooy wadamada aan jaarkana sida Itoobiya xilliyada la jeexay ayuunba xuduudeena la jeexay taasi ma aha markaa mid muran geli karta waa muqaddas waxa ilaahay mahadiya ilaahay inoo suuro geliyay maanta inuu inoogu dhacdo si nabadgelyo ah anigoo ka mid ah guddidii qabanqaabada ahna guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada Salaxley anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Salaxley ugu horeyn waxaanu fariin iyo maxaan ku dhahay taageero iyo hambalyo u diranaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku hawlan difaaca dalka gaar ahaan xuduudaha ay shaqaaqooyinku ka jiraan iyo xasilinta meelaha u baahan waxaynu leenahay waxaynu garab taaganahay ciidanka qaranka waxaynu garab taaganahay dadaalada ictiraaf raadinta ee ay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland wado ilaahayna waxaynu ka baryaynaa sanadkan sanadka xiga wadankeena oo madax bannaan inuu nagu gaarsiiyo dhammaan marti sharaftaan u mahadnaqaynaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay reer Salaxley mar walba siday uga soo qayb galaan munaasabadda maanta oo kale 18 May maanta waa maalinta qarannimada astaantayno ah waana muhiim qof kastoo muwaadin Soomaaliland inuu ka soo qayb galo ama uu halkiisa ka muujiyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan runtii fariin u diraynaa dadka ku nool gobolka Sool oo ay dhibaato badan qabsatay oo lagu soo duulay oo qaxay waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim dadkaasi inay maskaxda ka shaqaysiin doonaan oo dad reer Soomaaliland bay ahaayeen meesha tabashooyin baa ka jiray inay tabashooyinka ku soo noqon doonaan baan rajaynayaa insha Allah billahi kariim shacabka reer Salaxley sidan qiimaha badan isu soo abaabulay ee maanta u xusaya 18 May runtii Hargeysa yaabtay baa la oran karaa maanta meesha waxa ka dhacaya iyo quruxda iyo muuqaalka jaaga Hargeysa yaabtay taasi waa taa qodobka labaad ananu idin dardaarmaya waxa weeyaan nabadgeliyada inaynu ilaashano waxaynu quruxda ku leenahay
ee aynu ku joognaa ee sharafta iyo qiimaha leh waxa weeyaan nabadgelyada wadajirka qarannimada walaalnimada iyo wax wada qabsiga taa ayaynu wax ku noqonaynaa dalkeenuna wax ku yahay degmadeenu wax ku tahay ummadeenu wax ku tahay aad iyo aad baan idin soo dhawaynayaa reer Salaxley aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba anigu waxaan markasta idinku boorinayaa in nabadgelyadiina ilaashataan marka hore macaarad iyo maxaafid adduunyadu way wada jirtaa laakiin midda idin muhiimku waxa weeyaan in nabadgelyadiina ilaashataan cadow kaliya aynu wada leenahay haddaynu Soomaaliland nahay ciidamadeena qaranka inaynu siboorno qof kaliya waxba ma qaban karo ilaa ma ay xildhibaanadeena waxaan idin leeyahay degmaynu u dhalanay degmadeena ninkii macaarad ku jiro ninkii maxaafid ku jirowba waxa ogaataan tanuun baa cod ka soo doonanaysaan tanuun baana la isugu imanayaa doona sanadkii 20 jirsatay ee 18 May ayaanu leenahay madaxdeeda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Muuse Bixi ciidamada jiida sare ku jira ciidamada qaranka sida wasiirada ururada haweenka iyo iskuulka bulshooyinka dhammaan Soomaaliland meel kasta oo joogto waxa la ciid mubaarak oo ciid wanaagsan waa maalintaynu horumarka gaadhnaa Allahu akbar haraagto haadkaato dhanka kale halka waxaa ka hadlay xubno kamid ah golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo munaasabadaasi ka soo qayb galay kuwaasi oo ku dheeraaday maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan xafladda ka soo qayb galo oo kaga qayb galo degmada Salaxley oo igu cusubay saaxiibka iyo xildhibaan Maxamed Khadar waan uga mahad celinayaa inta kadib waa xaflad weyn waxa weeyaan waa 18 May oo aynaan isu tilmaamaynin waxay tahay waa maalintii qaranka waa maalintii aynu lahayn waa maalintii aynu la soo noqonnay xornimadeennii aynu dib uga la soo noqonnay walaalaheennii hore aynu ku biirray Soomaaliya marka waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo kulle waxaan u malaynayaa dee gacanna qorigaa lagu sidaa dalka lagu difaacayaa gacanna waxaynu ku wadnaa dee dabaaldegii ciidanka qarankana waxaan leeyahay ilaahay ha u gargaaro guul baan u rajaynayaa walaalayaal maanta oo kale hadal kale ma yaallo maadaamaaynu qaadannay wax la yidhaahdo dimuquraadiyad oo qofka siisa inuu qof walbaaba cabbiro sida uu wax u arko halkan haddii ay jiraan dad u arka in la mucaarado wax ay tahay dembi ma aha wuxuun baynu saxaynaa waddanka dumin mayno haddii aan laydmo waddanku waa Somaliland calanku waa calankeenna ciidamadu waa ciidamadeenna shacabkuna waa shacabkeenna waxaynu u wada taagannahay cid walbaba inaynu waddankeenna difaacanno taa miyaynu isku khilaafsannay horta taa waynu ka midaysannahay taa aynu dhowranno waa marka koowaad Mawlid Maxamed Saciid warbaahinta qaranka